هكا قرآنك إلهي كل شيء استقامة مركا حال حداد طبقات كستو مسلمين تكمد كل غلاد هاي سادين توقسقنا لها الدليل بلغوها يا دليل هداد بكانا تهينا نبي أيوب أو دليل نبي أيوب سديد يتوصلوا بكانا هاو قيد هزي في مرنا إلهي طاعد دي سيد دقرقي سمدينين ملك نبي رسوله والله اختباري تضبدي هبلوضو لها مركليا لغا ودا دلي او نفط لغا ودا قبتي واسكا صبري تضبدي ويلو لها مركليا اسرائيل واسكا صبري باريه تجارتي حوله لها ودن مركليا لغا قاداي واسكا صبري markaasa jirkiisi waliba xanuun lagu riday uska sabray xanuun nuuceeya gaadhay waxa la jirkii intuu dhamaaday harigaya lafaha isku dhagan bas markaasa wax ehela waxa uu soo hadhay xaaskiisii markaas qaraabadiisii ku yiraahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama anaku aan kaaga baxno may ana inaga fududo inaga tagay buuri ay tukubisay banaanka bay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ay culimada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tagaysay magaaladay u soo noqonayso dadkii u shaqeyn jirtay aqaladay ka shaqeyn jirtay leeydi wixii mushqaayad la soo siiyay intay soo ugu soo iibiso khubz ayay iyo idaam ayay markaa nabiga ugu keenay jirtay geedka hoostiisa markaas ay ku tiraada ayuubow xanuunkan halka ku gaarsiiyay in ummadii iyo dadkeeni ay banaanka inoo soo tuuraan nabi ducadiisa la aqbala ayaatahe ilaahay ma noo baridaha ka qaada xanuunkan oo dadka ku dhex noqonay markaa buu ku yiraahdaa 70 sano barwaaqo ku soo jirnay ma inta yar baan u adkeysan kara laanahay buu yiri barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysana ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacdo ayaa badan midka badan nicmada badan marka anbiyadu nicmaday eegeen mar walba dadna municimka marka way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen marka abu xaaskiisu ku yiri 70 sano barwaaqo ku jirnay ma muddada yar baan u adkeysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalmaha kamida labadii dad isaga ugu dhaweeday qaraabadiisa ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yiri mid baa yiri marka waru dhawaanay meeno xanuunkiisa inuu nagu soo tacaadiyaan ka baqaynaaye malaha dambi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaas oo marka nabi ayuub uu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurgurtay dadna meeshuu ku xaajoonay markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xagga buu uga dhaqaaqay halka buu marka ku ducaystay baa la yiri ducadiisana waa tan quraanka ilaahay noogu sheegay في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام ربي جيبه أودا واقي وربي جيبه لما ناجود أوقي لدان درتو مركيبه وحيري إله أنا قد بقى سوى قادو إتابته هذا قلنا كوا نحرس لك وقلنا حرس بدماته إله نبقى إيقا قاد بويري إلهي مركيبه دعاء دي سواك أقبلي بالليلي halkii uu joogay baa lagu lugtaada dhulka ku dhifo urkud birijlika 18 sano nin jiifay xanuunsana awoodda jirkiisa ku jirta ee dhulka markuu haraatiyay biyo uu kaga keeni karaa waa awoodee yani adagu asbaabtii la kaalay weeyaan anaka biyaha soo saaraynay lugtaada yar dhaqaaji bas asbaabtan adduunyadan arkayna oo dhan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira asbaabtan sida jirka bini aadanka ruuxdu ay ugu dhex jirto ayaa asbaabtan adduunka aad arkaysan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira marka nidaamka ilaahay isheenu ma qabanayso qudradda ilaahay baa caalamka maamulaysa lugtii buu nabi ayuub saa u dhaqaajiyay dhulkuu ku celiyay labada lugood dhexdooda biyo ka soo baxeen baa la yiri laba ilood oo biyo ilna waxa la yiri kumaydo ilna waxa lagu yiri acab oo mayday jirkiisi waa caadi oo cabay caloosha iyo gudaha wixii xanuun kaga jiro dhanba banaanka uga soo baxay oo soo kacay mar kaliya xaaskiisa magaalada ka timiday way ku wareegtay iyadoo xishoonaysa markaa waxay tiri oday ayuub la oran jiray oo bukaan ahaa
oo muddo dhowr iyo 10 sano halka aan la joogay oo maanta aan ka tagay magaaladan ugu maqnaayo aan u shaqo tagay miyuu dhintay ma dugaag baa qaatay waliba dhallinyarnimadiisiina adigu aad kuugu ekaayo formigiisii baad leedahay markaasuu ayuub aniga buu ka yidhi ana ayuub